meelahaas baa inta kasoo baxay ayay doodeen waa fikireen waxay iswaafajiyeen islaamkii iyo dowladii baa iswaafajiyey laakiin annaga waxay noqotay in dowladdiina lasoo dhoofiyo afkaartii dowladda lagu hortagaayay oo lahaa halagu bedelo dhaqankeedana afkaar lasoo dhoofiyey ayay noqotay annaga marka la fiiriyo dowladnimadeena ogtihiin lixdan baan dowladnimo qaadanay laakiin marka dagaalkii qaboba uu bilaabanayo oo four power commission muqdisho ay imaanayaan 48 49 baa waxaa la ogolanaya Soomaaliya 10 sano kadib inay noqoto dowlad xorriyadii qaadato haddana systemkaas dhashay dagaalkii qaboba baan la kowsanay miisaanka adduunkan isbedelay United Nationka samaysmay waxaa la dhisay golihii oo trusteeshipka ayaa la dhisay wadamo ay kamid yihiin Soomaaliya, Eritrea, Liibiya iyo dowlado kala galay waxaana loo gala xaaray inaan saas dowladda ku noqono laakiin sagaashankii systemkii ka dhashay dagaalkii labaad adduunka waa burburay nidaam cusub oo la yidhahdo new world order ayuu waa adduunya anaga markaas afka marka dowladnimadeena halkaasay salka ay ku haysay waxaa la mid ah marka fikirkii islaamiga ah yimid waa soo guuray meeshaan yimid sagaalkii sano dowladda qaab buu ula falgalayay gacaankii markay dowladda sano qaab buu ula falgalay burburkii markuu dhacayna qaabka ula falgalay isbedelaa ku socday marka buugga waxa uu ka hadlaya ma aha barnaamijka islaamka ee dacwada ka sheekeynaya maaha tacliinta ka sheekeynaya camalka khayrka ka sheekeynaya maaha aragtidooda ku aadan siyaasadda dowladda maxaa laga rabaa ma khilaafaa loo laabanaya haddii khilaaf loo laabanaya khilaafyada loo laabanaya khilaaf raashida miyaa loo laabanaya mise khilaafadii wiraafiga ahayd oo mulkiga ahayd oo la iska dhexla ayaa loo laabanaya waa su-aal mar dhexe markii la joogo matalan qarnigii toddobaad sideedaad markii la joogo oo caalamka islaamka qaybo ka badan oo kamid ah saliibiinta ay qabsadeen qaybo kale nimanka taarka ay qabsadeen culimo badan baa soo baxda rabti inkay jawaabto way tiro badan yihiin laakiin waxaa ugu magac dheer Ibnu Taymiya Ibnu Taymiya hadda dadka dagaalamaya oo dadka leynaya waa dadka loo tiirinaya afkaartiisa inay ku tiirsan yihiin laakiin Ibnu Taymiya meesha ay ka soo qaateen iyo Ibnu Taymiya sida uu uga hadlay dhibaatadii jirtay waa kala duwan tahay Ibnu Taymiya xilliga uu noolaa wax maanta saan adduunka xaaladkiisa oo kale ayaa ka jirtay muslimiinta daciif bay ahaayeen dhanka barina waxaa kaga yimid tatar dhanka galbeedna waxaa kaga yimid nimankii saliibiinta ah marka Ibnu Taymiya sheekh buu ahaa faqih buu ahaa masaa'il buu ka hadlayay caqiidu ka hadlayay fiqi buu ka hadlayay wuxuu ka hadlayay suluuka tasawuf uu ka hadlayay kitaabkan oo al-istiqaama la yidhahdo leeyahay istiqaama marka waxay ka hadlaysaa tasawufka suluuga iyo dhaqanka qofka cibaadaysanaya si dhaqan wanaagsan u yeelanaya si ilaahay u xirnaanaya zuhdigii iyo waxaas marka dad baa waxay kasoo qaateen Ibnu Taymiya istiqaama waxay dhaheen marka wadaadka suufigu ah لكن Ibnu Taymiya dhanka marka fiiriyo falsafadii uu daraasiyey مثلا عليا رد على المنطقيين كتاب كده dadkii logic ka hadla weliba Aristotle logigiisi oo formal logic ah ayuu naqdinaya markaas marka la fiiriyo marka uu naqdinaya waa nin filosof ah marka ninka dhankaas ka fiiriyo Ibnu Taymiya waa filosof intaas kuma ekaanaya caadaya maadaama saliibiintii ay soo galeen oo dadkii ay badan ka mid ah dhankaas ku janjarsadeen كتاب ليها الجواب الصحيح لمن بدل عن دين المسيح. كريستيان كيف كهدايا يصير الدين بدلين. مركا وحيابها علماء مثل في ريو حلقة الجوين وحو نبكم مالك مثل في ريو لقيميو ولو قيميو شروطه المسلمين تيجين معها كوكو تبق معيني بوحيين. قرار بدن ولا هاي شريعة حافظنا وقتها نحن نقرأ معين وحابة هذا ترى بدن بنجر لكن أمضي اللي سكوها هيا كذا مهم سنين Ibnu Taymiya كذا مهم سنين علماء السلف والرئيسي وحنفي مالكي شافعي أحمد انتبه
dadkii xilligooda joogay dhibaato kala kulmay madaxda xilligooda joogay dhibaato kala kulmay qaarkood xabsiga ku dhinteen qaarkood waa la xiray dhibaatooyin baa jira laakiin culammada maysan arkaynin intay caroodaan dowladdana burburiya dadkana laaya maysan lahayn waxay lahayd ninkaan meesha joogana hala saxo ummaddana hala badbaadiyo hala isku haayo marka taariikhdaas dheer halkaasay dogsan tahay maadaama aan meeshaan lagu soo koobi karinna meelihii ay qofkii rabo inuu raadiyo waa tilmaanay marka arrinta ku saabsan dhaqdhaqaaqyada islaamiga oo aan kasoo bilownay 68dii oo muusena usan u noqday maxaan oo muuse u dooranay buuggan buggii ugu horreeyey maaha oo af soomaali lagu qoro cabdishakuur miro aadan allah naxariisto ayaa wuxuu leeyahay buug la kobaca islaamiyiinta marka buuggaas waa jira horaa loo qoray buug kale inay jirana waa suuragal oo muuse marka 68dii goobjoog ahaa urur ka mid a ururadii ugu horreeyey ayuu xubin ka noqday marka xilligaas ilaa mar dhow u geeriyo oo muuse waxaan maleynaa 22-kii uu geeriyo allah naxariisto marka wixii intii ugu muhiimsanayd buu ayuu soo koobay intii kale waxaaba laga yaabaa annaga goobjoogeen oo waxyaaba badan kala socnaa ama qoraalo kaleeto xillidaas laga sameeyey ayaa jira marka gundhiga buugga waa in waxaa la isku khilaafsan yahay diinta maana waa siyaasadda laakiin hal problem aa jiro ah diintii aqoon fiican looma leh maadaama diinta aqoon fiican aan loo lahayn waxay keentay dadkii inaan dhibaateeyo magacii diinta lagu dhibaateeyo diinta waa raxmad waxay soo degtay ilaahi subxana watacaala dadka laga xoreeya addoonnimada ilaahay keliya inay addoon noqdaan laakiin diintaas waxaa loo adeegsanaya dadkii in la cabiidiyo oo lagu gumaysto gumaysi marka laga soo baxay oo dadkii ay dowladdii ay u hanqaltaageen ay u dhalatay laba kooxood baa soo baxday koox waxay tiri dowladdan isticmaalkii baa ka dambeeya waa nimankii garabka bidixda ahaa ama hanti wadaagga waxay dhahan waa inaan iska xoreyna gumaysigii gumaysi baa jira haddana gumaysi cusub baa jira iyo kuna naatiin wadaadadina waxay dhahan baasha waa in dowladda waa in la islaamiya waa in shareecada lagu dabaqo labadaas qol marka la fiiriyo bilowgoodii hore heshiis bay ahaayeen waxay heshiis ku ahaayeen duulaankan ugu soo socdaa iska dhicina laakiin wixii dagaalka labaad ka dambeeyey qolyihii qawmiyiinta ahaayo ishtaakiyada ama hanti wadaagga ayaa taladii gacantii la soo dhigay markii nimankaas ay meesha yimaadeen nimankii gumaysigaayoo baxay waxay fiiriyeen halkee ugu sahlan oo laga qaban karaa labadooda hala isku garaaco qayb badan oo kamid a waxay tilmaamaysaa sida dagaalka qabooba uu saameyn ugu yeeshay in wadaadada loo adeegsado in dowladihii ama nimankii qawmiyiinta ama nimankii hanti wadaagga ahaa maamuladii ay haysteen in lagu burburiyo way isweydaarteen mar dambe islaamiyiintii baa qabsaday wadamada qaarkood qawmiyiintii bay birta ka asleen ayagana horaa birta looga soo asliy marka meertadan see looga baxaa meertadan see looga baxa waxay u baahan tahay in asalkala intay wax soo bilowdeen ama qawmi ahow ama hanti wadaag ahow ama liberaal ahow ama muslim ahow haddaaba wadda muslim ku noosheego aad ka tirsan tahay kan wadaadka iyo kan wadaadka ahayn cid kastoo meeshaas ku nool maslaxadooda waa hal waxay u baahan yihiin deganaansho waxay u baahan